kusoo dhawaada barnaamijka Musaamax Kariim aad iyo aad baan idinka mahad celinaya sida wanaagsan oo la socotaan barnaamijkan Musaamax Kariim hore loo yiri saaxiibtinimadu waa shay ku qaaliya nolosha aadmiga saaxiibka wanaagsanina noloshaada saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa ka xunna sidoo kale qisada maanta dii wado waxay ku salaysan tahay laba saaxiiba oo ka soo jeeda dalka Suudaan labadoodu waxay ka tirsanaayeen kooxaha hiddaha dhaqanka oo ciyaara dalka Suudaan balse laakiin aan gudagali doonaa bal aan yeerno waxaan u yeedhaynaa Rajaa Maxamed wala soo dhawaato أهلا وسهلا رجاء هاوان دوهي قد ما حسنت مدني يقولن حالك هذا رجاء الحمد لله وأنا هاي وح عبسية أيوة ماي وح عبسية ما قالوا عبسية سما ما شاء الله أدو واحد كتر سنتهاي قاعة هدية دقنك يضلك السودان ها مدني واسداس سما إمتى سنة كجرتينا إلا 5 سنة 5 سنة ها وهذا معيار سدنيا معياره حالكاس أيات كجرت سيارتي ميا ما نشوتشين لكن هذا معياره وجوج سمعنا هوية أساس بالورد رجميات لا هنا ها عرنا ما لا ماي ملهد إلهي ما كعبري لكن القوة إلهي بسيط إن شاء الله رجاء مركو روا كعجم هالإنية كسوق قريب كلك كسوق قريب كشيء برنامج كان مسامح كريم حريد أظهر وحميسي أو صاحبتني معه أدب أدسوع نقعدون وها أرو ها إن برد أنا صاحبة هذين قصة بالعادية هردعو labadan hablood ee ka tirsanaa kooxaha hiddiga dhaqanka ee Suudaan Rajaa iyo Arwo waa qiso amba dhacdo lagu saleen karo maseer Arwo waxay u sharaxaneed inay matasho ka qaybgalka bandhig lagu qabanayo wadanka Masar ilaa ee Faransiiska kana qaybgali rabtay ciyaaraha heer caalami ee hiddiga dhaqanka ee adduunka Rajaa iyadu may qancin dhoofitaankii dhoofayso saaxiibteed Arwo oo iyada rabtay inay baxdo oo ay booskeeda gasho Rajaa waxa isku dayday sidii uga reebi lahayd dhoofkaas wayna ka qarisay baasaboorkeedii si ay uga hadho Arwo dhoofitaanka baasabooro kaliya uu may dhigine daroogana markaas ugu dhex qarisay shandadeedii Arwo Masar bay timid wadankan Qaahira halkaas aan ku nooshay imika laakiin muddo laga joogo hadda 5 sano oo uu xiriirkii iyada iyo saaxiibadeed kala go'an yahay 5 sano waxay garatay in ay saaxiibadeed gaf iyo khalad weyn ka gashay halkana waxa uu timid stuudiyahan Musaamax Kariima inay dib u soo ceshato saaxiibtinimadeed oo kala qayb qaadano heshiiska saaxiibtinimo waad u xiistay aduu saaxiibadaas waan u xiisay saaxiibaday muddada aad kala maqneedeen innaba ma isku dayday inaad xiriirkiina dib u soo yeelayso in ay saaxiibadeed gaf iyo khalad weyn ka gashay halkana waxa uu timid stuudiyahan Musaamax Kariima inay dib u soo ceshato saaxiibtinimadeed oo kala qayb qaadano heshiiska saaxiibtinimo waad u xiistay aduu saaxiibadaas waan u xiisay saaxiibaday muddada aad kala maqneedeen innaba ma isku dayday inaad xiriirkiina dib u soo yeelayso waan isku dayay laakiin iyadu iga diiday waad dhaawacday adigu Soomaha waan dhaawacay oo wadanka waxay u tagtay arrinka adigu sababtay dartii miya imika adigu waxaad ka qoomameynaysaa wixii aad ku samaysay saaxiibada Soomaha waan ka qoomameynayaa wax kasta raali ku noqonaysana diyaar baan waa inaan u sameeyo waxay doonto igu ciqaabtana anigu waan sameynayaa laakiin adigu maxaad ugu sameysayna maxaa sababay inaad baasaboorkeeda ka qariso daroogana ugu dhex qariso shandadeeda xaasidnimo ayay ka ahayd miya dad baa aniga igu dhahay adiga kaga wanaagsan tartankan kuna wanaagsan booskeeda inaad gashid ana waxaan ku fikiray iyadu kaama fiicnaan karto waxyaabo kale badanna waan ku sameeyay si kooxda looga saarana waxaan ku gabadhan darooga isticmaashaa sharciga kooxda u yaalaana qof darooga isticmaala kooxda kama mid ahaan kareen oo darooga ay isticmaashaa ayaa tirmiya taasaaba ka sii darneed ka qarinta baasaboorkeeda aad ka qarisay markii hadalkayga la maqlay iyada kooxdii waa laga saaray ana booskeedii baan galay kadib waddankaygana anigu u matalay ciyaarihii anigu saaxiibtinimadii meel xun baan kaga dhacay qaladna waan ka galay Arwa markii ay ogaatay waxaan aad ku samaysay yani inaad daroogo aad u qariso oo ma garanaysaa baasaboorkii aad ka qarsato maxay samaysay iyadu way ka xumaatay dhaawacna way kula dagaalantay marka ma ilamay dagaalamin wixii aan anigu ku sameeyay darteedna waddanka oo dhan bay iskaga tagtay waddanka waxay uga tagtay khaladkaad adigu ku samaysay miya markaa arrintaas uga tagtay iyada sumcadeedii baa xumaatay maxaad ka filanaysaa falcelinteedu iyada inuu noqdo ma garan karo ma garan kartid miya wallahi anu ma garan karo si iga yeeli xaalkeeda imika hadda ay ku sugan tahay aduu maxmeed ka ogtahay in la qabo iyo inaan la qabin may arrimeed waxba kama ogin waxba kama ogin waxba kama ogin si kasta ahaataba waan gaarsiiyay farintii Arwo
balan eegno iyadana inay naga aqbashay codsigeennii. sidaad la wada socotaanba qisadan horaad maqasheen oo rajaawatii inooga warantay sida wax u dhaceen. halkanna waxa u timid inay xidhiirkii saaxiibtinimo dib u soo celiso iyadiyo arwo. waxay ahaayeen asxaab aad isku kalsoon oo ay ka wada dhexayso saaxiibtinimo iyo shaqaba. halkaana khilaaf iyo waxa ka yimid xaasidnimo oo arwo iyo rajaa kala dhex maray. rajaa waxay dhaawacday ka wada dhexayso saaxiibtinimo iyo shaqaba. halkaana khilaaf iyo waxa ka yimid xaasidnimo oo arwo iyo rajaa kala dhex maray. rajaa waxay dhaawacday arwo oo xumaan bay u geysatay iyadoo sumcaddeeda dhaawacaysa si uga xaasido dhoofka arwo ku dhoofayso ka qaybgalka ay ka qaybgelayso ciyaaraha heer caalami ee hidiyo dhaqanka. maantay timid 5 sano kadib oo uu xidhiirkoogu kala go'naa. balan eegno carwo stuudiyo ku jirta waanu yeedhaynaa. carwo ha soo gudubta haddaba. ahlan wasahlan carwo, ii waran. waan dhowahay mudane George. iga waran axwaashaada iyo dhammaanba. waa wacanahay mudane. ka waran xaaladahaaga waddanka masar ka waran xaalkiisa. adigu waxaad ka timid suudaan, waxaad hadda ku nooshahay waddanka masar. waad ku nooshahay oo reer miyaad leedahay? haa, reer waan lahaa laakiin si waan kala tagnay. carruur miyaad leedahayna? waa mise jirna? haa, waa 9 jir. 9 sano ayuu jiraa, maasha allah. markii aad ka tirsaneed kooxda hidiyo dhaqanka ee suudaan miyaad lahayd inanka? haa, u yaraa markaa waana lahaa reer. hadda miyaad ciyaartaa mise waad ka disa ciyaarihii? wallaahi 5 sano ka hor bay ciyaartaas iiga istaagtay. maxaa sababayna? waxa sababay way adag tahay mudane. way kugu adag tahay miyaa? haa. anigu halkan wanaaggun baan kuugu yeedhay. yeedhitaanka anugu ku yeedhay aniga ma ahayn, balse laakiin qof baa jira la kulankaaga doonaya. isagaana jeclaystay inaan stuudiyahan kuugu yeedho. ma laga yaaba inaad ku fikirayso qofka ku yeedhaya? ma garanaya anigo. ma jiraa qof aad niyadda ku hayso, qof ku cisaynaya, ku jecel, kuna raba la kulankaaga si uu ku arko? intaas kuma fikiraysid? may ma jiro qof aan niyadda ku haya mudan. ma doonaysa inaad ogaato qofka ku yeedhay? haa, waan doonaya. fiinaan leedahay shaashadda inoo eg haddaba. waa taas eeg. ma dhici karto. calaamo ku dhexdaydiiba ma rumaysan karo waxaan indhahaygu arkayaan anigu. horta muxuu yahay barnaamijkani? kani waa barnaamij carwo, waa barnaamijka musaamax kariim. adigu ma ogid miyaa inaad timid barnaamijka musaamax kariim? may ma ogin. barnaamijkan waa musaamax kariim. gabadhan miyaad garanaysaa adigu? iyadu waxay leedahay waa saaxiibaday, adigu ma garanaysaa? haa, waa garanaya. magaceedu muxuu yahay markaa? rajaa la yidhaa. rajaa la yidhahdaa. goormaa kugu dambaysa aragtideedana? 5 sano ka hor. 5 sano.